madaxweyne biixi runtii anigu waxaan u aqaan inuu yahay hogaamiye hal adayg leh dadka qaar baa waa dictator waxa weeye waa ninka taladiisa iyo maaragtay iyo ra'yigiisu yidhaahda kaygun baa soconaya waa been baan leeyahay muuse kaa maaha muuse waa nin kula doodaya hayladoodina da waa ceeb marka hadduu ka oo sida wuxuu kula doodayaa waxaad kula hadlaysa iyo wuxuu kaala hadlaya inuu doodiisa marsado dabeedna markuu waddo isagu jeexdo dee hadduu tiisa noqoto dee dictator maaha ila fursad buu kuseen la hadasho la doodee in badan aan waxaan u soo joogay rayaanu ka wada hadalay waxyaalahan u leeyahay maaha sidaa oo runtii aan u soo joogan le waa hogaamiye oon u soo joogay intaanu ka doodnay oon ka wada hadlay tayda noqotay aniga wallahi inaan been sheegahay oo yidhi taadaynu raacayna ma noo sheegi kartaa mise waan sheegi karaya maxay tahay arrintii carraa ka mid ahayd oo tiisaa ku adkaystay laakiin markii dambe ku dhammaynay uu sameeyey waxaa ka mid ahayd markaan dhisayay hoolka shaqaalaha dowladda oon lacag loo haynin doodiina dhex martay way ka ogolaa waxaa ka mid ahayd benshanka guriga 3 dabaqi benshanka ee ku dhex yaala hay'adda shaqaalaha markaan dhisayay shilin lacag looma hayn dood baan dhex martay waan xusuustaa wasiir cabdulle maalinta la fadhiyay markaanu doodayda iyo tayda noqoteen sawirkii uu sameeyey benshanku iyo faa'iidada uu leeyahay iyo lacagtu soo xareynaya iyo inta qof ee ka baxaysay fursad u ah in la shaqaaleeyo wixii oo dhan oo waliba ah uniformed and non-uniformed oo ah uniformed civil servant kuwa dareeska sito ciidamada benshankii la geliyo iyo non-uniformed ah shaqaalaha rayidka wuxuu ku yidhi cabdulle waa jooga wasiir cabdulle wuxuu yidhi laba nin unbaa rayigoodu marka ay aanu arrin ka wada hadalno qubuc igu yidhaahdaa waa farxaan iyo buu yidhi cadar waan xusuustaa ilaah bayga sarreeya taasaa ka mid ahayd arrimo badan oo sidaas oo anigu aanu dood ka gallay oo tayda noqotay baan garanaya marka dee dadka kale ku cabiri maaya taydaan anigu ku cabiraya waxaan kala kulmay aan ku arkay runtii waa nin wuxuu ahaa madaxweyne jecel in lala doodo runta loo sheego wuu necbaa qofka ka baqe u qariya war waxaad qaranaysa waan garanayaa waxaad igu tiraahdaa waa hebel baa too nin fulaya baa too nacas baa igu dhamuuri jiray xataa isaga sheegi jiray qofku waxa inuu ka baqanayo marka horta nisaasaan u aqaanay waana nin halgamaayo oo dalkan u soo halgamay naftiisa u huray sida maxamed kaahinan sheegayo ku tala galay inuu u geeriyoodo ugu baxo dadkan say nabad ugu nool sharaf ugu noolaada isaga rag kale badan oo dee nool iyo wax dhintay ilaahay oo naxariistay ninka sidaasa ma filayaano kumana arag kumana ribaynayo inuu khilaafka kaalin ku leeyahay inuu gacan kula jiro iyo farana ma qabaano waayo shirka fulinta anaga qabana nooma yimaado nagama soo qayb galo walaga yahay maxamed kahan iyo fulinta markaa talo ugu taqaano talo soo siiyo laakiin de wixii kale ee aan aniga qayb amaani soo gaarin ilaahay baan dawladna kama warrami karayaan laakiin talo waxay baan sheegaya marka kaalin kuma leh muuse laakiin haddii xisbigaasi mugdigan arkayo ku sii socdo dee waan u malaynayaa inaanu ka faralaabanahaynoo dee waa wuxuu kusoo tabcay weeye tacabkiisiba uu ku jiro marka runtii waxaan leeyahay maya xasha lilah